marka waxaan rabaa shalay hadii wanaag lagu heshiiyay maanta la kala taga laba qof oo isqabto oo kala tagtay oo gogol xalaal soo wada gashay oo dib uga sheekeynay rimooda ka war macaabku kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu soo dhawaada gacmo furan halka aad naga daawanaysaan waa janalka Sakhaawadiin haddii ay tahay marka kugu horeyso aadna soo booqato fadlan casaanka cadaan u bedel gambaleelka furo si aad u hesho warbixinada aynu soo gelinayno ee joogtada ah haddaba daawadayaal idinkana wax idinku nahay daawashadiina like-tiina commentigiina waxaan idinka codsanaynaa in yar baa inoo hadhay inta yar inaad na gaarsiisaan subscribe-ka si kastaba ha noqoto maanta waxaan rabnaa inaan idiin soo gudbino ama idinla wadaagno barnaamij yar oo aad u xiiso badan oo aan rabno inaan ku baraarujino dadka isticmaala social media oo u isticmaala siyaabo qaldan sidaa darteed waxaan ognahay in social media ay Soomaalidu u badan tahay gaar ahaan Facebook-ga, YouTube-ka, TikTok-ga, Instagram-ka waxyaabo la midka ah waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno marka maxaan u dhaanaa oo aan rabnaa oo wanaaga oo aan rabnaa inaan farno bulshada isticmaasha social media sidaa darteed ilaahay baa na faraya in dadku ay wanaagna isfaraan xumaanna ay markaas iska reebaan waxaan rabnaa maalin kasta waxaan aragnaa bulsho iska caaysa social media live inta soo fadhiisata hebel caynaya dawlad caynaya wasiir caynaya youtuber caynaya fanaan caynaya cidku ay markaa la cafinaya haba yaraatee ma jirto waxaan rabnaa marka sidoo kale waxaa jiro dad qoysas isqaba oo ku soo bandhiga arrimahooda qaaska arrimahooda gaarka ah social media waxaad marqaati ka tihiin in uu batay dadka isticmaala social media ee ma garanaysaa ee lamaanaha ah burburkooda qoys sidaa darteed kalibyadii ay hore u duubeen ayagoo isku faraxsan ay qof kasta oo ayaga kamid ah markii la kala tago ay xumaantii ma garanaysaa iyo dhibaatadii ay timaado dib loo daawadaa waxaan ognahay qaar kamid ah social media youtuberadu inay reaction bixiyaan reactionka dhanka wanaagsan lama diidano laakiin dhanka positive-ka ah ayaan rabnaa inaan dadku u sheegno in walaalkaaga ceebtiisa aad asturtid uu ilaahay adna ku asturay walaalayaal marka waxaan u baahannahay ma noo wanaagsan tahay inaan nolosheena kaga sheekayno social media adoo xaaskaaga kusoo bandhigayo la fara ciyaaraya la quslayo berri waad kala tagteen waxaa kaloo arkaysaa laba qof oo kala tagtay oo isku dhegan sidaad arkayseen aadama hore u daawateen marka walaalayaal waxaan u baahannahay in ummadda wanaag la dhaxdhigo islaax bayna naas la sameeyo wax la xaliyo waxaad arkaysaa dad xumaan soo jarjaray qeybo kamid ah warkaagii adoo wax diidan iyo adoo wax ogol intii soo keeno haddana wax ka sameynaya ama music saaraya waxaad arkaysaa dad wasiiro ama xildhibaano xaflad ku ciyaaraya hees lagu dul qabanayo marka qofka bini'aadamka ma isweydiisay tallaabo kasto wax kasto aad samayso oo qof bini'aadan aad ku caydo ama aad ku aflagaadiso ama aad kula dagaalanto in ilaahay maalimaha kamid ah uu su'aal ku weydiinay adiga walaalayaal dadka youtuberada waxaan leeyahay ee is caynaya ee is aflagaadeynaya shalay heshiis baad aheedeen waxbaad isu qabateen sida CK iyo inanka kale Muqdisho jooga oo aad marqaatayga aheedeen baydhabo ii raacisaan ugu sameey kan uu yeelay waxa laga yaabaa labada dhinac qaar kamid inay kala saftaan waxa suurtagal ah in labada dhinac qaar kamid ah ay la kala saftaan midna mid kale ay taageeraan ama ay aflagaada ama ay ku taageeraan dadka muxsiniinta ee wanaagsan ee aqliga u saaxiibka ah ma sameeyaan waxay sameeyaan inay islaax baynana sameeyaan idinka oo rag ah hadii aad meelaha isiga tirisaan maxaad u maleynaysaa dadka kale marka walaalayaal waxa ugu muhiimsan aan rabaa inaan idin sheego waxa weeyaan maanta maalin aan ahayn ayaad ka shanlayn doontaan qof walaalka aad xumaan ka gudbisid qof walaalka aad fadeexasiid gudbisid qof walaalka meeshuu ka qaawin oo soo bandhigtid waxaad marqaati ka tihiin in qofka bini'aadamka sidiisaba qalad uu ka dhici karo mistake uu dhici karo kullu bini'aadam maxaa leeyahay khadaa'un maqaldamo waa ilaahay baa dhameystiran marka waxaan rabnaa barnaamijka social media qof arkaysa live soo galaya wuxuusan ogeyn buu iska sheegaya war maadan ogeyn in garbaha laga saaray war maadan ogeyn in malaa'iktu wax ka qorayso walaalayaal ilaahay baan idin ku dharshay qof baa marka ma fahmin Soomaalidu waxay rabaan in si fudud caan ku noqdaan caannimadu ma waxay nala gashay marka inaan qof aflagaadeyno live loo soo fadhiisto qof cayno aniga iminka cidna ima cayn cidna mi aflagaadeynin laakiin waxaan rabaa in dadka walaalaheena aan ilaahay ka baqa dhahno oo wax sheegno haddii aad igu raacsan tahay commentiga la shaqray barnaamijka sidaa darteed walaalayaal qofka wanaagana ku taageer xumaantana ka reeb
marka waxaan rabaa shalay haddii wanaag lagu heshiiyey maanta la kala taga laba qof oo isqabta oo kala tagtay oo gogol xalaal soo wada gashay oo dib uga sheekeynaya arrimahooda ka war macaab ka weyn baa jirta ما يفهم هذا الكيك ولا عيب شرف درو واحد دقن كسومالي دي دينتا راد كله معها إن لسكا شكايو دad hore nolol soo wada qaatay عيب way waxa iyada ah dadkaasna waxaan leeyahay si buunbooninay arrimaha si qaada dhigayo oo wax ku darayo waxna ku kordhinayo waxna ka reebayo ilaahay ka baqaydi kuna walaalayaal waxaan rabnaa ummadda inaan u isticmaalno xaggan waxaan kilibkan u soo duubay waxaan arkay waxyaabo aad iyo aad looga xishoodo oo qofka aqliga saliimka oo alla ka baqaya uu ka xishoodo dadku dhaqmayo ugu aakhira ku sugayso waxaad marqaati ka tahay dadka wiigii hore noolaa inaysan maanta noolayn halkeed ku balansatay adigu dunida joogisteeda halkeed ku ogtahay war munkari wa nakiir ba ku sugayo su'aal ba ku sugaysa aqabri ba ku sugayo madow waxa soo dhan isxasuusinteedu waajib bay nagu tahay haloo isticmaalo social media dhanka positive-ka ee wanaaga ah wax isku sheegistu ma xumo wax isu tilmaamidu ma xumo laakiin waxa dhibaato ah inta hadalkayga qayb kamid ah jirtid haddii aqoon rabbi ku siiyay oo taqaanid video editing inaad wax soo jarjartid wax isdul saartid waxa aan jirin aad samaysid mas'uuliyaddeeda lagu weydiinaya ama dad ha aaminaan ama yay aaminin Soomaalidu maxay tiri been fakatay run ma gaarto waxa aad samaysay oo beena oo bulshada dhexdeeda gaartay hadii lacala qofkaasi loo qabsado dib loo geysto family hadii isku kala tagaan laba qof oo isqabto xitaa hadii ku kala tagaan waxaad arkaysaa dad shaqo ka dhaxaysa oo inta waxa ay shaqadii marka ay ku heshiiyeen oo kale in dib loo soo dhigo qof xanuunsan hadduu xanuunsado waxaad arkaysaa dad dilaya dhaa hebel waa dhintay maanta maxaad ka dilinaysaa maadaa gacanta ku haya dilkiis waa maya maxaa kugu kalifay in qof walaalka ku mashquushid maxaa kugu kalifay qof inaad dabagal ku samaysid ba waxaad arkaysaa gabadha xamdubina la yiraahdo oo Soomaalidii ka calaacalaysa ka cabaadayso wax kala ma qofku wuu xanuunsan karaa laakiin waa hebel wuu dhintay hebel kan waa dhimashada maadaa gacanta ku haya waa maya qof nool maxaad ka dilinaysaa war ilaahay ka baqniyo taasi qodob dhimasho dadka warka waa la hubsadaa wax alla waxa social media ku aragtay runha malaynin adigani daawanay wax alla waxa qof bini aadan ku hadlay dadkan intay kala caroodaan war laba qof oo isdagaalsan ba midba midka kale hadalkiisa la aamina xalay qof ku cabanaya hadaad aragtid qof daqran haduu ku yimaado gadaashiisa ka egbaalin calooshu banaanka taalo nin daqran ka waran haduu dhiigu ku kiciyo adigu aad carooto wala daqrtiraad hadaad intaad carartad weerar qaadid oo aad tagtay ninkaan calooshi bini aadanka banaanka soo dhigay oo qof toorey geli ka war dibkeeda leeda wiliga waa hubsiimada hal baa la siistaa hubsiimo hal baa la siistaa waxa aad fiyuska ka raadinaysaan daawashada ku raadinaysaan waa lacag baad rabtaa inaad heshaan waa inay noqoto xalaal xalaalna macnaheedu waad garanaysaan waa waxaad sadaqaysan karto waa waxaad xajka ku bixi karto waa waxaad waalidka siin karayso marka lacagtaada hadii ay waxba kugu qabanaynin xagga diinada ay waxba kugu qabanaynin haddaan dhimato shaygan aad isticmaalaysid qabri yaani karfirm lagaaga iibi kara waa ma iswaash walaa marka waxaan u baahanahay هذا ما سنتين talada iyo wax sheegista iyo waanada iyo wanaaga waa qofku waa u muhiim qofka dhinac inuu raaco laba qof oo isdagaalsan adoo u eegaya awaa aqaana iyo waa ila dhashay ilma adeeru leeyahay naartaada yaani ha ku iibsani jannadaada ha ku doorbadanin wanaagaaga akhlaaqdaada suuban ha ku doorbisanin hebel baa ila dhashay qof kasta qof kale mas'uuliyadiisa ma qaadi karo qof kasta qof kale dambigiisa ma qaadi karo dambigaaga kugu filan kan adduunyo kan aakhiro kaasa kugu filan xil mid kale ma qaadi karaysid aad u mahadsantaan intaas waa wanaag iyo wax sheegis halka aad naga daawanaysaan waa channelka Sakhaawudiin asankana cadaan u bedel soo dhawow meesha waa meeshaadii saaxiib soo dhawow gacmo furan waxaan idin ka codsanaynaa meel kasta aad joogtaan inaad dhiirigelisaan oo aad gaarsiisaan subscribe in nagu filan insha Allah biidnillah meel kasta aad joogtaan waxaan idin kaga tegayaa سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت انتني كلنت كلو انه كل مدونه برنامج كانوا كلا حيس قبا وولالك سخاودين وهلك داونس وشانك سخاودين هذا ما سنتح داوش هذا